war-saxaafadeedkan maanta halkan aan isugu yeernay xarunta Taleex caasimadda dowlad goboleedka Khaatumo ah wuxuu ku saabsan yahay hadal dhawaan muxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uu maalintii calaamisaarkooda ku dhawaaqay oo ahaa gogol baan fidinaya deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Xayr u fidinaya iyo maxay ahayd hadibkeedii arrimo khuseeya madaxweynaha waxaan u sheegayaa markii hore maxay ahayd isbedelkii ka dhacay muxuu ahaa xukunka sare dowlad goboleedka Puntland waanu hambalyeynay waa soo dhaweynay waxaanu islahayn kuwo isbedel keeni kara oo nabad ku wada noolaansho iyo danaha guud ama gaar idinka dhaxeeya hadibkeedii aad ka wada shaqeyn karaysaan bay yihiin sidii silaayaba oran jiray maxay ahayd intuu halkana ka dilo halkana maxay ahayd ka xadsuuqo afkana ka yiraahdo gogol baa shacabka u dhigaya waxaan leeyahay shacabka kan waa kii tashaday 2 sano ka hor waa kii tashaday qaybihiisa kala duwan oo dhan intay halkan isugu yimaadeen xarunta Taleex waa kuwii ku tashaday dawladda samaystay haddaanu dowlad goboleedka Khaatumo nahay diyaar waanu u nahay wixii danheena naga dhaxeeyay inaanu dowlad goboleedka Puntland kala hadalno laakiin shacab gogol loo fidinayo dawladuhuna waxay ku wada hadlaan miisbay ku wada hadlaan gogol la isu fidiyo kuma wada hadlaan shacab haddii maxay ahayd muxuu ahaa taa intaasaan ka leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo dibkeeda leeyahay sida muuqata waxaad moodaa darawaladii unbaa isbedelay siyaasadda ay Puntland ka leedahay maxay ahayd deegaanka Khaatumo ay ka leedahay inuu isku mid yahay